بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي wanaagsan daawadayaasha aynu jecel lahay oo meel walba waa joogtaan si kasto muuqaalka iyaga oo idin soo gaarayo halkan waa xarunta dhexe ee TV-ga Somali News magaalada caasimadda ee Muqdisho waan xilladii aan idin soo gudbin jirnay war wixii dalka iyo dibadda inaga soo gaaray war soo jeedintuna waa anigoo ah Idris Maxamuud Iimaan qodobada aad ku daawan doontaan warka iyagana waxaa kamid ah madaxweynaha maamulka Puntland iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa gaaray degmada Goldogob oo ka tirsan gobolka Mudug ciidamada nabadilaalinta midowga Afrika ee AMISOM oo war ka soo saaray la wareegitaankii deegaanka Janaale oo ka tirsan Shabeellada Hoose xildhibaanada baarlamaanka maamulka Jubbaland ayaa kordhiyay waqtiga madaxweynaha Jubbaland uu ku soo dhisayo xukuumadda cusub ee maamulkaasi sidoo kalena waxa ay dhaliil ujeediyeen hadal dhawaan ka soo yeeray guddoonka sare ee baarlamaanka dalka wafdi ka socda urur goboleedka IGAD ayaa gaaray magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay muddooyinkii ugu dambeeyay magaalada Hargeysa waxaa ku soo badanayay garoonada casriga ah iyadoona daaha laga rogay garoon kale oo casri ah wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare ee xukuumadda Soomaaliland waxa ay ku dhawaaqday imtixaanaadka shahaadiga ah ee fasalada 4 iyo 8 qodobadaas iyo sidoo kale daawadayaal boqolaal muhaajiriin ah ayaa waxa lagu soo waramayaa inay ku xaniban yihiin Budapest